هذا الحين بدن أي دوان وحاو كذا شيء هذا الكي دوان كسو يريد قدوم يكحيين كقولها شعب كبرلمان كجمهورية الفدرالية الصومالية اللي بان سعدية سمطر هذا الحين تاسو شرعي جنسي إن أشيكتين إن برلمان كصومالي الهرجين دون إسلام مرهان تانا أي ميل مرين دونان هذا بقى الرمها سي وحكى على قيبها كالدوني بالشدة سكوجر علماء الدين يسدوا كلا قويهنو هذا بقى الرمها سي وحعاون الله فلانقين دونا إن حلبان محمود حسين أبو بكر جراحة وكمل قولها شعب كبرلمان كجمهورية الفدرالية الصومالية قد كسكابك أيو ستة سووا حلبان كسروا برامج كنا ده بقالك ورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكله هذا معاني. إن حلبان إن سيدا وركتا إن شرعيا جنسية دوان أي كهذا الشيء قدوم يكحيين كقولها شعب كبرلمان كان وباس جرين دونا سيدا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. مركز كوباد وحن سلام يا يونيفرسال تي في مركز لبعض حن تعسيين يا ذاتك حلقة أي كوحلة الشيء قرحة يدبعتها مقالة مقبشة إيوه كوي كله أو فرمها أي خوارج كلين يسي يودن بيسي مقالة غايب waxaan kale oo u hambalyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo yiri khawaarijta halala diriro si fiican dadka ugu gubaabiyo hormuudna u noqday waxaan kale oo aan aad u taageerayaa xildhibaanada furinta hore jira iyo shacabka kacay intaba markaan inta ka soo noqdo waxaan ayaan le waxaa jiray khamiistii iyo jimcadii maaqaan midoo ahaa shirka ay qabatay gudoomiye Sacdiyo sidaad u sheegtaba ummadda Soomaaliyeed saameyn badan ayuu ku dhex yeeshay marka koobaad markaan u daadago shirkaas meesha lagu qabtay waxaa ku qornayd far ay ku qoran tahay gender ayadoo la heli karay in eray bixin badan oo maaragtay Soomaali ah loo sameeyo oo isku imaatinka haweenka ama wixii la rababa eragaas anigu ma fahmin hadda cid kale oo aan Soomaali ahayn oo la tusayay xoogaa Soomaalida hadal badan buu ku dhexdhaliyay sensitive buu noqday luqadda Ingiriiska oo meeshaas lagu qoray waxaa kaloo sensitive noqdo dadka aad iyo aad u taabtay calaamadda ay siteen dumarka qaarkii oo aan ahayn xijaab aan ahayn mara ay qabeen ee calaamad ay soo qaateen oo garbasaar iyo iskaaf wuxuu ahaa aan garanayn taa laftigeedu maadaama waayahan dambe meelaha dadkaas xun isugu yimaadaan ay calaamada wateen saameyn bay yeelatay oo aad iyo aad iyada laftigeed waxyaalaha xasaasiyadda kiciyay ka mid tahay midda labaad gudoomiyuhu waxay ka hadashay sharciga Muhammadiyada in ay maaragtay ku dambayso kuna dhaqamayso ma garanayo maadaama aan leenahay sharci madani ah sharciga Muhammadiyada dad islaam ah oo dhaqan leenahay ma garanayo waxa kalifi kara in hadda sharci cusub ay u raadiso maadaama ay sharciga diinta islaamka aad iyo aad u aaminsan tahay horeyna aan ugu soo dhaqmi jirnay aan ku dhalanay ciqaab badan iyo xadayn badanna uu sameeyay diinta muslimku sameysay midii ugu sareysay qof walbaba xuquuqdiisa ilaalinteeda ee sharciga islaamku midii ugu sareysay sameeyay midda labaad saddexaad arrin kale oo xasaasiyada oo gudoomiyuhu taabatay oo ahayd in ay qaybisay ummadii 12 milyan ahayd oo Soomaaliyeed iyadu gudoomiyaha oo ahayd ay qaybisay oo ay rag iyo dumar u kala saartay oo aysan khudbadan kaliya ahayn ee khudbooyin badan oo aan u malaynayo tan saddex intay ku tahay intaan fiirsaday ay kaga hadasho mar walba dumar ragga saadna yeelay dumarow annagoo dumarka xushmo badan u hayna oo hooyaday tahay gabdhaha naga yihiin xaasaska naga yihiin walaalaheen yihiin aanuna isjecelahay xushmada ugu badan aanu hayno dumarka ayna jirto nin walba huba
oo aabba ah inuu ka hormariyo wiilkiisa gabadhiisa oo gabadhu ay mudnaanta koobaad noo leedahay nooc kastooy tahay guddoomiyuhu aad iyo aad bay ugu dheeraatay iyadoo kala qaybinaysa oo divide dadka kala qaybinayso xasaasiyad badan oo isleeyahay amniga ama familiga ama bay saamayn u leedahay maadaama ay tahay qof hormuuda guddoomiyahanagii tahay yacni maaragtay dadka inay aad iyo aad u feen reebto ayay aniga iila muuqatay oysan dadka qaybin aadna moodo hadda aad iyo aad inay ugu fogaatay dhinacaas qaybinta oo amniga dhib ku keenaysa oo wada noolaanshaha familiga dhib ku keenaysa oo meelo badan taabanaysa midda saddexaad afraad oo taabatay waxaa ka mid ahaa qabiilada Soomaaliya inay qaybisay oo xasaasiyad laftigooda ka dhex dhalisay oo ay tiri qaar baa miino lagu xiraa lana dilaa xukun cadaaladana aan helin oo dhibku ayaga bukhaas maaragtay u saameeya iyadoo doctor Soomaaliya maanta dhibku camimay iyadoo doctor wax qofka dhimanaya maanta uu badan yahay qof kastoo Soomaaliya qaraxa uu ku dhimanayo dhibaatada uu ku dhimanayo dagaalada uu ku dhimanayo haddana inay qabiila yacni ay si gaara u taabatay qabiila gaar ah in dhibka loo geysto ayada laftigeedu wax maaragtay aad iyo aad nooga fajiciyay ahayd marka arrintaas kolley anigu dadka ka hadlay aad iyo aadna khudbadaas aan u soo dhaweyn baan ka mid ah waayahay hadda sharcigan jinsiyadda guddoomiyuhu ay soo hadal qaaday baarlamaanka ay u soo socdaa si gaar ah golaha shacabka waxayna ballan ku qaaday inay baarlamaanka uu meel marin doono bal taasi bal sidee u aragtaa ayaa la waxay la taahadee wuxuu yiri nin baa laga sheegay biyo meelkoogi waa bulaxle waxyaalaha maaragtay dhibka sameeyayba ka mid tahay oo hadda way ku dhaaratay inay meel marinayso anigu hadda cid uga horeysay oo hadda maaragtay meesha ku sugaysana garan maayo xildhibaanaduna waxay u dhaarteen lamba 1 diinta bay u dhaarteen waxay kaloo u dhaarteen dadka waxay kaloo u dhaarteen dalka waxaan u malaynayaa sharci hadda loo keeno oo maaragtay diintii ay ku soo dhaqmi jireen oo ay ku dhasheen maaragtay ka duwan sharci maaragtay loo keeno oo dhaqankooda ka duwan sharci loo keeno oo midkooda hadda u yaala oo madaniga ah oo u yaalo maxkamadu wax ku xukumaan ka duwan oo loo keeno inaan nina aqbalayn baan u malaynayaa maaragtay saasaan u malaynayaa xildhibaanaduna way dhaarteen dhaarta ay ku waana dad muslina waxaana u malaynayaa nin walba meeshiisa inuu ku gubanayo arrintaasuna dhibkeeda ay ku hayso baan u malaynayaa inuusan sharcigaas baarlamaanka mari doonin baan u malaynayaa xildhibaan maxaa dadka u muuqda oo ay ku diidan yihiin sharcigan oo ay arki waayeen haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka iyo haweenka kale ayaan la waxaan u malaynayaa maaragtay dadku hadda naadir xugun ma leh dadka waxaa laga yaabaa inay si ula muuqatay waxay ula ay ila tahay in maaragtay dadka qaar uusan ba fahamsanayn waxa laga hadlayo ee loo qurxiyay laakiin sharciga islaamku boqolkiiba boqol wuxuu protect gareeyaa dadka jilicsan wuxuu protect gareeyaa oo ilaaliya dadka maaragtay dumarka ilmaha xuquuqda ugu badan buu siiyey anigu hadda ma garanayo haddee waqtigu waa waqti waa duni aakhiru zabaan waa waqti aad iyo aad maaragtay xasaasi u ah waxaan isleeyahay wax keeni kara anigu ma garanayo su-aashaas anigu maantay waxaan isleeyahay hadda waxaa la yidhi sacab haddaan wax ku jirin maxaa hameenkii loo tumaa waa sacab kolley dad dan lahu tumayaan maahan sharci uu dalka u baahan yahay maaha